Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabay channelkayga markasta iyo meel kasta kusoo dhawaada channelka ayaan idin leenahay. Maanta waxaan baranaa sida YouTube tags loogu darsado tags. YouTube tags waa maxay? Waa marka aad doonaysid in uu videoga aad YouTube-ka ku upload garaysaa uu kasoo muuqdo fiidiyoyaal badan marka wax lagu qoro YouTube-kaas. Asxaabay haddaba sidee ayaad ugu daraysaa? waxa aad tegaysaa website-kaasi loo yaqaano Keyword Tools. Keyword Tool marka aad tagtid waxa aad kasi doonaysaa meeshaasi waxaad ku qori doontaa wixii aad u baahnayd. Waxaad u baahnayd asxaabay waxay noqon karaan wax kasta. Waxaad oranaysaa in sida loo sameeyo WhatsApp ayaad oranaysaa. waxa uu ku soo saaraya wax kasta oo ka bilaabma sida loo sameeyo hilibka, sida loo sameeyo WhatsApp-ka, sida loo sameeyo wax kasta oo ku searching ayaad oranaysaa marka. searching asxaabay marka aad u dirsid bartaas ayaa uu ku searching garanayaa. marka uu kugu soo baxo bartaasi searching-ta ayaa waxa ku soo baxaya waxyaabo fara badan oo sida loo sameeyo oo fara badan. asxaabay haddaba sidee ayaad ugu darsanaysaa tagska YouTube-kaaga? tagskuna waxa weeyaan marka video aad YouTube-ka dhigtid si uu uga soo dhex muuqdo fiidiyoyada badan. Haddii lagu qoro sida loo sameeyo WhatsApp videoga, haddii lagu qoro sida loo sameeyo hilibka, waxa uu kasoo dhex muuqan doonaa sida loo sameeyo WhatsApp. casharkaagi ayuu ku dhex xigi doonaa. asxaabay waxaad Keyword Tools marka aad taabatid website-kaas booqanaysaa Keyword Tool. marka aad kusii dhufatidna waxaad kasii dooranaysaa bartaasi YouTube. markaad kasii dooratid waxaad kasii searching ayaad oranaysaa. bartaasi YouTube ayaad kasii dooranaysaa. buttonka ayaad hoos soo riixi doontaa. halkaana waxaad ku qoran doontaa wixii aad doonayso sida loo sameeyo YouTube ayaan imika odhanaa. asxaabay waxa uu noo searching garanayaa wixii codsigii aan dirsanay. searching ayaan odhanaa. waxa uu searching-kaasi noogu maqan yahay shirkadda YouTube, waayo waxa ay kuu soo diraysaa iminka message-ka sida loo sameeyo message tools. markaas asxaabay halkaas ayaa uu kaaga soo baxaya waxyaabahaas fara badan ayaa asxaabay ku soo baxay. kuwaasi ayaad ka dooranaysaa. haddaba kuwii aad doonaysay waa kuwii loo baahnaa. kuwaas ayaad ka dooranaysaa kii aad rabtay sida loo sameeyo hilibka, sida loo sameeyo laundry ayuu leeyahay. marka asxaabay waxaa isweydiin leh sidee ayaad ugu daraysaa? waxaad ugu daraysaa waxaad qaybahan kala baxaysaa intii aad rabtid. iminka kuwa dhexe tigta ayaan saaranaya 5 ayaan ka dooran karaa. haddii aan all doonayana Keyword Tool halka ku qoran tahay ayaan tig saaraya. all tig ayaa ii wada saarmaysaa. sidaas darteed waxaan odhanayaa copy. meeshaas ay ku qoran tahay copy ayaan ku dhufanayaa. asxaabay meesha ku qoran tahay copy markaan ku dhufto waxa aan paste ku dhahayaa tagska YouTube-kayga ama YouTube Studio-ga. asxaabay waad aragtaan iminka inaan copy dhahsaday. marka waad ka noqonaysaa. fadlan waa inuu mobilkaasi kugu jiro application-kaasi loo yaqaano YouTube Studio. application-ka YouTube Studio waxa uu kaa caawinayaa inaad YouTube-kaaga tags ku darsatid. application-ka YouTube Studio ayaan iminka guda gelinaa. asxaabay waa kaasi iminka ayaan guda gelinaa. waad aragtaan asxaabay waa uu noo soo saaray videoga ayaad haddaba ku dhufanaysaa. markaad videoga ku dhufatid waxaad kasii dooranaysaa bartaasi qalinka. asxaabay markaad kasii dooratid waxaad sii sameynaysaa halkaasi ay ku qoran tahay edit thumbnail ayaad kusii dhufanaysaa. description maaha tags meeshaasi ay ku qoran tahay ayaad paste ku dhahaysaa wixii aad soo copy garaysid. asxaabay iminka paste ayaan ku odhanaynaa. waan ku darsanaynaa YouTube-kayga. idinka arkaa asxaabay paste ayaan ku odhanayaa. waad aragtaan all in uu noo wada yidhi paste ama uu noogu soo daray. asxaabay waxaa kaliya oo aad sameynaysaa save ayaad odhanaysaa. waatan asxaabay saved ayaa uu yidhi.
sidaasi waxa uu inoogu darsamay youtube-ka iyagni tags amase thumbnail tags ayaa noogu darsamay. Asxaabay waan idin salaamaya inaad ka heshaan cashka ayaan marinaya. Subscribe saara. Assalaamu calaykum.